kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dalka Itoobiya iyo dagaalada ka holcaya gobolka Tigreega oo weli sii socda iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo booqday biyo xiraanka ay Itoobiya ka dhisayday webiga Niilka ayuu booqday ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed. Ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa booqashadiisa waxa ku weheliyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka wadanka ahna wasiirka arrimaha dibadda. Sidoo kale waxaan barnaamij ku fiiri doonaa ergeyga gaarka u qaabilsan Afrika Mareykanka oo iscasilay iyadoo lagu waday inuu maalinta berri ah booqdo dalka Itoobiya. Sababtu isku casilay ayaan barnaamijka ku fiirin doonaa. Intuu halkan ka socdo waxaan ka codsanaynaa haddii daawada uu muuqaalkan ku soo gaaro inaad YouTube-keena subscribe saarato, saaxiibadana la wadaagto muuqaalka, siina share gareyso, like-tana ha naga hilmaamin. Halkaad barnaamijka kala socotaan kana daawanaysaan waa shabakadda warbaahinta Glangal News. Si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay fadlan muuqaalka share dheh, like saaro, subscribe-na saar YouTube-keena markale. dowladda Itoobiya ayaa ilaa iyo maanta waxay duqeyn xagga cirka ah ka waday magaalada Makalle iyo tuulooyinka u dhow oo ay sheegeen in TPLF-tu halkaasi dhuumaalaysi ka wado. Dagaalka ayaa u muuqda inuu sii daba dheeraaday, waxaana la soo warinayaa tan iyo markii dowladda Itoobiya ay ka soo baxday gobolka Tigray uu dagaalkani yahay kii ugu qaraaraa Itoobiya iyo kooxda TPLF. dagaalka oo muuqda inaan waxba la iskula harin. TPLF ayaa waxaa la soo warinayaa in isbitaalada magaalada Makalle ay dadku ugu dhimanayaan daawo la'aan maadaama gobolkaasi uu saaran yahay go'doon tan iyo xilligii dowladda Itoobiya iskaga soo baxday. TPLF ayaa lagu eedeeyay sidoo kale inay dawooyinka iyo gargaarka bini'aadanimo ee United Nations ama qaramada midoobay u fududisay dadka Tigreega ah ay TPLF wadada ka qabsato isla markaana ay ku daryeesho ciidamadooda. walow arrintaasi ay si weyn walaac uga muujiyeen hay'adaha qaramada midoobay ee caawimaadda la soo gaaray gobolka Tigray. Sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa waxay weli sii wadaa safaynta waxay ugu yeertay kooxaha argagixisada ah. dalka Mareykanka ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dowladaha reer galbeedka isla markaana kooxda TPLF loo aqoonsanayo inay tahay koox argagixiso ah. Mareykankuna uusan taakulay karin isla markaana uu faraha kala baxo arrimaha gudaha dalalka Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya oo la sheegay saddexda dowladood inuu ka dhaxeeyo xulafaysi ama xulafada geeska loogu yeero. dadka shacabka ah ee gobolka Tigray ayaa la sheegay inay soo wajahday macluultii ugu weyneed iyo sidoo kale dawo la'aanta ay u dheer tahay duqeymaha oo ku sii socda iyo kooxda TPLF oo muuqata inaysan weli gacnaha kor u taagin. dowladda uu hogaamiyo Abiy Ahmed ayaa sidoo kale waxay weli wadaa duqeymaha xagga cirka ah, walow maanta la soo sheegay in dhowr tuulo oo gobolka Tigreega ah isla markaana daris la ah magaalada Walta la sheegay inay ka dhacday duqeyn aan ilaa iyo hadda la ogeyn khasaaraheedu inta uu leeyahay. dowladda Itoobiya ayaa waxay markaan awoodeedii isugu geynaysaa gobolka Tigreega si kooxda TPLF meesha looga saaro maadaama kooxdaasi ay dowladdu u aqoonsan tahay koox argagixiso ah oo doonaysa inay dalka kala goydo. waxaana weli dalkaasi waqooyigiisa ka socda dagaalkii ugu qaraaraa ilaa iyo hadda inta la xasuusto. waxaa la soo warinayaa in dowladda Itoobiya shalay iyo maantay oo keliya ay qaaday 40 weerar oo xagga cirka ah, iyadoo midaasina muujinayso baaxadda uu leeyahay dagaalku iyo sida aan waxba la iskula reebanaynin. isla markaana kooxda TPLF ay ilaa iyo hadda dhulka buuraleyda ah ku dhuumaalaysanayso. dowladda Itoobiyana ay xagga dhulka iyo dhanka infantry-ga labadaba ay weerar kaga qaaday kooxda, walow la soo warinayo in kooxda TPLF magaalooyin waaweyn laga qabsaday, goobaha dagaalkana qaar lagu jabiyay. waxaa sidoo kale iyaduna ay sheegtay inay dishay saraakiil ka mid ah ciidamada Amxaarada oo ilaa iyo hadda laga aqoonsaday 2 sargaal oo hogaamiya ciidamada gaarka ah ee gobolka Amxaarada. waana sargaalkii gobolkaasi Amxaarada markii dowladda Itoobiya ay ka soo baxayday dagaalka ku galay magaalada Makalle isla markaana la sheegay in ciidamada Itoobiya markii halka tageen ay ka geysteen kufsi wadareed iyo xasuuq ay ku eedeeyeen dowladaha reer galbeedka iyo hay'adaha
hay-adaha qaramada midoobay, walow dagaalka TPLF iyo dowladda federaalka ahuba uu ilaa iyo hadda yahay mid sii socda, aysana jirin wax waanwaana. Dhanka kale waxaa iscasilay ergeyga gaarka ah ee u qaabilsanaa Afrika dowladda Maraykanka u qaabilsanaa dalka Itoobiya, islamarkaana iscasilaadiisa ilaa iyo hadda aan la ogeyn waxa ay salka ku hayso, balse waxaa muuqata in ergeyga gaarka ahi maalmihii lasoo dhaafay uu soo saarayay waraaqado iyo warbixino isdaba joog ah oo uu kaga dalbanayay dowladda Itoobiya inay joojiso dagaalka, islamarkaana ay miiska wadahadalka timaado. Dhanka kale, ergeyga gaarka ah ayaa wuxuu si adag ula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ku eedeeyey inuu kala baxo arrimaha doorashada faraha, islamarkaana ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu si dhab ah ula shaqeeyo, walow arrintaasi ay culays ku keentay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo arrintaasi weyn uga cagajiidayay tan iyo markii uu kasoo baxay amarkaasi. Dowladda Maraykanka waxay sidoo kale cadaadis xooggan saartay wadamada bariga Afrika inay kaalin ka geystaan sidii loo jooji lahaa dagaalka ba'an ee ka socda dalka Itoobiya ee muddada dheer sii jiitamaya.